ergan nabadeed uu hogaaminayo garaad mukhtaar garaad cali buraale ayaa goor dhaweyd soo gaaray magaalada Buuhoodle waftigan waxaa kamid ahaa cuqaal cilmi awdiin iyo waxgarad waxayna ku biiri doonaan dadaalada nabadeed ee wadaan waxgaradka deegaanka Buuhoodle ka soconaya degmada Hurufadhi ee lagu heshiisiinayo labada beelood ee walaalaha ah waxa halkan ka hadlay qaar kamid ah waxgaradka iyo cuqaasha beesha Khayr Cabdi iyagoo baaq nabadeed u diray labada beelood ee walaalaha ah ugu dambeyntiina garaad mukhtaar garaad cali buraale ayaa sheegay in maanta loo baahan yahay in nabad laga shaqeeyo marka hore waxaan salaamayaa golaha kan saxaafadda iyo wufuudan waxaanu nahay beesha Khayr Cabdi ama qayaad sida loo yaqaan waxaanu ka nimid bari ama gobolka Sool aan idhaahdo iyo aagagiisa waxaanu noo soconay meesha la yiraahdo Hurufadhi iyo aagaag nimanka walaalaha ee dhibaatadu yar dhex martay inaanu nabadeyn u aadno gobolka Buuhoodle yaanu maanta joognaa isagana waxaana loogu soo dhaweeyay si fiican barina waxaanu u guureynaa haddii Alla idmo halka iyada aan magacaabay waxaanu rajaynaynaa insha Allah sida khayr kale ee wanaagsan inaanu la kulmi doono insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaanu ku taaganahay wufuud ka timi bari beesha Khayr Cabdi oo soo ambabaxay nabadeynta dhibaatada ka taagan gobolka Buuhoodle maanta suu camal loogu soo dhaweeyay meesha ay labada beelood suluga u tahay Hurufadhi iyo aagaag insha Allah bil kariim halkaas oo aan doonayno inaanu nimanka walaalaha ah u sheegno waxa ay tahay nabadu iyo waxa dhibaatadu tahay waayo labadaba anaga soo maray garanana وأنت إسلام كان كسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وفتي عبد جراد إلى الله سبحانه إلى دعم مكتمي وأسعد أن بدين طلبا بيراد شغاغد الأحمرتي مركو روحان تعسيين إياه دورادي لبتو قادي وحاول لأن هاي إلى هاي سندي إيمان يعول خير قضاء هاي كسيو وحيد انتين إلى هاي وننكد انتين الله ونحرس انت كبعدي walaalayaal waxaan u soconaa nabad dhexdiina labada beelood beesha hayaag iyo beeshan reer hagar ilaahayna waxaan ka baryaynaa inta in ilaahay inaga ekaysiin ka fadhii kari weynay waligin waa isdiilayseen oo nin iyo laba iyo waa dhimanayseen sidan isuguma idin ciidansanay waxaana la yiri way isu ciidansadeen Hurufadhi ceegaag bay kala fadhiyeen aad ba hadalkaas noo dhibay waa waxa naga soo maro ninka ay soo martay xanuunkeeda og yahay waxaan idin reeyay waan idin imaanaynaa hadii Alla idma biri labadii noqolaba waa u imaanaynaa waxaan idin la soconaa waxaan rajaynaynaa inaad naga aqbashaan naga dhigo wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh garaad soo dhawow adiga iyo waftiga hogaaminayso nabadeynta bal soo dhawow garaad naga waran waftiga iyo safarkiina nabadeed إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله نعجب ما سنتهاي سؤال هذا الحمد لله ويا مسافر كيجي ما أنت كقصة كعناي شليته لا سعنود إلى دجامة بدون وكلاء ودعم جدا بيسي أن كسر مرناي كنا نمد إلى هنا نمض كأنه مجال Buuhoodle سفر كاسو وجد كيسوي عارنتين أن كسر قيب قادنا رئيسنت حوجنت نبض أنت لوضع بيلاد هياج يهاجر oo isma horena ku jireen iyo ergooyin badan oo kale oo talka ah oo meel kale uga soo gurmaday inaan ugana garab ka soo istaagno haddana beesha Cabdi Garaad inta iyadu ma ilaahay noo soo awooday waanu jeclaynaa mar hore ka soo baxno saddex saacadii aan baa shaqeynaysa taas oo maanta ilaahay noo soo siiyay inta kalena waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu noo fudeediyo talkana sida uqaash iyo odayaasha hore u sheegeen كوي تعصد كنت من نوع تعصدنا لا نحن برنا مرحوم كلي دنتين لا نحن الله يبغى مشقة iyo hadda xaajada meesha taagan tahay in kastoo xabsi badan hadda aan qabin oo kuwa niscishanayay aad baan ugu mahadinaynaa inay xaajada inta soo gaarsiiyeen inta kalena insha Allah tolka iyo inta ergooyinka isugu timidna ku simaan oo inagu simaan aan ugu soo nimaadno insha Allah baritan safar baan nahay aan ugu jeedno xagga iyo Hurufadhi iyo eegaad iyo tolkii meesha mashaqadu ka dhaxdhacday insha Allah ilaahay aan nabad geeyo idinkuna nagu soo duceeya
waanu salaamaynaa markii lato ismadii xagga nagu soo dhaweysay garaad cabdisalaaq garaad soofe iyo garaad salabaan iyo garaad suldaan siciidna iyo culimadii kale la socoteen aad baan ugu mahadinaynaa sida wacanay nagu soo dhaweeyeen Buuhoodle iyo reer Buuhoodle dhammaan iyo qolada saxaafadda intiina ma daawanaysana waan salaamaynaa idinkuna noo soo duceeya dadka tolka walaalaha noo soo duceeya حاجة ماشي صارنا نوجس الدعاء الله ينوفذ ذيو دير ما أنتنا والسلام علينا والسلام عليكم ورحمة الله وعلى عثمان شعار دكتور بوهولة وغوي بري تي في